nagu jilib jilib manihin jasiyo qolow ma deganin inagu jilib jilib manihin jasiyo qolow ma deganin jifiyo waxaynu nahay jirid midho dhalisayo jidhka isukeen damqada ha jiro gurubkani ha jiro gurubkeenani ha jiro jaliilka noo bariye cadowgeennuna waxaan soo gaarnay Gaabo Gabdhoole degmada Gaabow 7 iyo qadar 35 daqiiqo waxaanu ka soconaa ururka dhalinyarada waamo oo ka dhisan meel kala gedisan waxaanu idin soo aadno idinku nimid inaan idin soo gaarsiino sadaqo yar ay idin soo dhiibeen walaalihiina dhalinyarada waamo oo kala jooga America Canada iyo Kenya iyo Kismaayo intaba taasaanu u soo kacnay aanu idinku nimid inaanu idin kala qayb qaadano wixii ay doonayeen inay ku sadaqaystaan walaalayaashooda jooga degmada Gaabow taasaanu awalan idinku nimid marka waxaanu idin wadnay waa kan halkan yaala inaanu idinku wareejino baan rajaynaynaa insha Allah wixii naloo soo dhiibay amaanada ahaa aanu idinku wareejin doono haddii Allah bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan salaamayaa meesha geeri meel kasta ay joogaan garaadadeeda suldaamadeeda nabadoonadeeda masheekheeda siyaasiyiinteeda iyo dhalinyaradeeda gabdhaheeda meel kasta ay joogaan waan salaamayaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام inta kale soo maanta waa maalin farxad weyn oo leh waa maalin maanta ka hor aan soo marin hadaan dadkana ay Gaabo degan hadii aanu nahay aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarada waamo maanta dadaalka ay sameeyeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa dadaalkan iyo dadkiisa badan inay qabtaan annaguna wada shaqeynaan yeelano aad iyo aad baad u mahadsantiin walaalayaal wixii aadna soo gaarsiiseen caawimadaha aad soo dhiibteen magacaygu waa Cabdiraxmaan Macallin Nuur halkan waxaan ka salaamayaa dhalinyarada ururka beesha waamo beesha jiri waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaalayaal waad mahadsantihiin maanta waxay loo tahay farxad weyn ma aanan filinaynin hadduu alla ilmahayo meesha waan ku dayacneen dadka walaalaha jooga aad bay loo diiriyeen dadku dalkiisa iyo dadkiisu isku xiryihiin maanta waxay loo tahay farxad aad iyo aad u weyn walaalayaal waad mahadsantihiin idinka ah inta kale oo tolka iyo ehelka ah inaad gaarsiisaan dibadda amaanaha dalku waan urba dadkiisa iyo dadkiisu wax ku yahay inaad meesha loo wanaajisaan sida hadda maanta aad ma aragtaay aad macnaha walaagii iyo khayrka aad ku samayseen aad macnaha bilaarisaan yaan idinkugu mahadcelinaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gabdhoole waatan odayaasheedii dhalinyaradeedii gabdhaheedii dhammaan waa joogaan marka waa maalintii koowaad oo aanu aragno wax meel ka yimaada qurbaha ka yimaada ama magaalooyinka waaweyn ka yimaada oo gabdhoole wax soo gaarsiiya maalintii koowaad u yimid marka ma hadda ilaahay baa iskale laakiin waxaanu siinaynaa ururka waamo aad iyo aad u baatay waa ururka wuxuu baa jira ururkaas waa ururka aanu isleenahay waa ugu dadaal badan yahay nagu jilib jilib manihin jasiyo qolow ma deganin inagu jilib jilib manihin jasiyo qolow ma deganin jifiyo waxaynu nahay jirid midho dhalisayo jidhka isukeen damqada ha jiro gurubkani ha jiro gurubkeenani ha jiro jaliilka noo bariye cadowgeennuna ama aynu isugu xidhannahay dhammaanteen maaragtay maasha Allah dhul qurux badan baad joogtaan dhulkaana waxaan rajaynayaa in magaranaysaa laydinku imaan doono walaalihiin ururka dhalinta waamo
deeqdan soo dhiibay iyo kuwa kale oo ku soo irta oo ku dayasho mudan oon u malaynayo in maartay dee rag hawl waa loo bilaabaa baa la yidhi ninka ragga hawsha waa loo bilaabaa run ahaantii aad baan ugu mahadcelinayaa ururka dhalinta waamo hawshan galka seefta kala baxay idin soo gaadhsiiyey kulley xubnana waan ka nahay oo dee maartay inaan ku biirnaan rabnaa wixii dadaal wada waan soo dhaweynana waan ku biiraynaa insha allah marka waxaa weeyaan dhulkaas halkan biyahaad u jeedaan waa warta Gaabo Gabdhoole ku magac dheer la magac baxday biyaheedii waa kuwaas waa biyo aad u qurux badan wartaas waxa weeye 3 bilood biyaha hisaab leh waa barkad kama duwana sabdhisan ninkan aad u jeedaan ku soo dabaashay marka dhulkii wakaas waa dhulka quruxda badan oo jiika uu leeyahay kaas weeyaan marka Horiya walaal bal waran nabadi caafimaad program idinku ما في عنا ما شاء الله الحمد لله وانا معي سنيد واقع ركتان يا بنو معي سنة بلغ واكنا اي مرواقدي واتنا اي الهي بالحمد لله ما هذا اسكله كلكم وانو غرمدي هذه يا بنو مهنقينا انت دبيت خيطول كان اني نو غرمدان يادين سو رجينا ادو ربي يادين سو غرمده waxaan noo gudmay dhalinyarada groupka dhalinyarada waamo saaran hadda Allah iskale أنت كلامنا وحن رجينا مالك قيد بدن وحياة كلامك قيد بس إذا بركض وكله إذا وراها حلو بيقول حنين وين قرانا إن عيالنا لا قضاء كله هدي اللي وين بركض تنا لا يسوق ويدنا لا قضاء وحياة فربنا كان يعني رجينا إلهي يوم ضرب مدني إلهي مرة هيه هوي هيه إن شاء الله ويكون دلال بدن بافلنا ولا شمالو على بنك صار يا كراع يا الله اللبح لبح بالورن ما شاء الله أنت بالله هذا معلول يا ولد ما شاء الله قريهن وقريها استراتيجية أو مقالة برتن كذا حدون كذا كويا لا لأنك قريبا كسر شيء ذا كله تاسو قريبا كفوا بنتهاي هل كان قاري Gaabo Gabdhoole kismaya ka aaday waa u jeedaan baa ka baxay oo rakaabka arursanaya marka aad iyo aad bay u kala shidan tahay u kala socotaa aad baan idin salaamayaa video waan soo gabagabeynayaa gaariga iga tagaya masaajidka wakaas xuduntii magaalada wartaas waad u jeedaan ciddii Gaabo Gabdhoole banaynaysa inay wax u qabato inay soo degto intiiba kuwaas gaariga ayaa mar dhow soo baxaya markaan soo baxaynaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta nala daawa